وبين هذا نكان شعله هايون للفايون ريره هاين دن أقا soo tagoon aabahay hooyadii wiilaan عادي naag baa dhashay عادي quruxdaas naag baa soo saar kaligii dhulka ma soo fiican marka waxaan dhilahay subahay ayaan dileen la saarin عادي وليس كلا ساري أما اللي يرو problem كوا هو يدا أما صدقه صح برامج كسوارته adduunka wax laga doodo firbadii عادي laakiin in laga doodo oo miiska la soo saaro hooyo yaa horta waxa ay dhibaato weyn عادي kuwii dooda keenay TV watay iyo kuwii la dhexdhigay labadooda way khaldan yihiin صدق mid kale waxa waaye waana hadda weynaaday aniga ma kana waana weynaaday wiilkayga oo mataqaanaa guursaday gabar doodu marka hore in halka laga dhigo kuma qurxoonayn in hooyo laga doodo anu ma qabin hooyadu ama gabadha xageeda ka imaato ama wiilka xagiisa ka imaato in dood hooyo la qabto hooyo ma gurigeeda ma imaanay mise ma imaanay dood ah in la qabto marka hore anu ma qabin horta waxaan dhihi lahaa saddex guri ma dumiso waxay dhistamaayeen hooyadii walbana way jeceshahay in wiilkeeda guri yeeshto anigu dhalay ay aragto way jeceshahay ku faraxsan tahay ana waxaan u arkaa in qaran tahay sababta waalid meesha haduu imaado waalidkii fadhiga loo kacal rabaa ana totally waxaan arkaa in khalad tahay hooyada Soomaaliyeed oo wiilka dhashay haddii ay waalanta hataa wiilkeeda cunug u dhalay mar xataa nabarna ugu geysanaysa mana dhibaateynayso taas ana waxaan gabadha shalaad baratay hooyada way ku dhashay dawarka ku waday haloosha ku waday ku soo barbaarisay inaad gabadha shil soo guursatay hooyada kaga fiican malaha xitaa ubad ka dhashay iyada kaga fiican carruur waa dhalaysa duulaa ku sii laakiin hooyada waa kaligeed marka kuma dhalanaysa ka dhimata ama dayac adduunka uga tagto waadii jannada maxaa la yiri labadii loo wasaajiday gabdhaha buraha bulshada oo labada maalin socday dhahayaan sodohda ayaa ka dambeysay sodohda waxay ka dambeysay malaha waayo ninka aad soo guursatay oo ilmahaad u dhashay hooyada ku soo rafaaday sama aadan hooyada ku soo rafaaday micnaheedu ma aadan hooyada inay guriga kaysato oo aad u galaato hooyadiisina aad diido tooridii soo qaatay hooyadii uu ku dhuftay wadnihii ka soo saartay wadnihii buu la orday waa farxay maadaama wadnihii uu helay gabadhii uu jeclaa inuu helo uu ku faraxsan yahay wadnihii la orday meel dhex markuu sii marahayo uu la kuf wadnihii ka ciidow wadnihii markuu ka ciidow wadnihii baa la hadlay waa ilaahay meel wax ka doonahay hooyo see wax ku gaareen ilaa wadnihii hooyo sidee wax ku gaareen way ka naxay anigu aan saddex jeclahay been ku sheegay jacaylkayga marka ka hadlo waxa jira hooyo kulul sayd kulul iyo hooyo aan kululeen oo degan marwalba hooyo waa hooyo marwalba waa hooyo ma sha Allah aniga wiil baa iskuursanay tayda baan kaaga hadlaya saddexday hatta laba cunug mataanaadkeeda waan ku dhalay waligeena dabgooni kamaana shidin digsiga cuntada laga soo qaadaan gabigaan isla wada cunayna hatta ninkii qaba hal weel aan ku wada quudanayno dul qaadan karina macnaha dhibaato warkeeni meesha in la keeno horta hooyo صدقها لسه قف كله تمام من ما نأكل ما وهوي هوي ذا مركا إني معناها برنامج كلهم بارت اللي في الجيس إني هوي المشي لوقا بديه هوي الله فلان غير أبو هرت مركا أنا وركا إني معناها دي بحطه وحجري هين مدي حكتو صدقها إني برنامج معناها خير أساسي هذه زمانه إني معناها عندي بحطه جيسين من سنة سببتها صدقها وهوي ذا gabadhan adiga aaway joogtaan hooyadii waadi hooyada ay kale sidoo kale adiga hooyada iyadoo waa hooyadeed oo kale aniga saddex in kasta aan soo arkin maaragtay wax tii kama sheegi kari wax burburayaan waxaas leeyahay labada qof mid kamid ah haddii oo laba qof mid sabro gurigu isnaanayaas leeyahay hooyana laga maaran karo anu doodaas markii hore iyadoo ila qaldaneed haddana qoladii ku dooday hooyada gurigeeda ma imaan karto hooyadayna way imaan kartaa way ila qaldanayeen in badan ay u qaldanaa aragti qaldanay ahayd inkastoo laga yaabo jaliin ay ahayd warbaahinta u jalaayeen ma garantay marka waxaan dhihi lahaa saddexdii aan dhaliil la saaray wiilka hadiisan aadan jeclaanin hooyadiis ma jeclid laakiin markaad wiilka jeceshahay eeygiis xataa waa jeceshahay sideedaba warbaahinta waxyaabo yaqaaniina jirta in waxa la yiraahdo laba xagal laba geesood oo iska soo horjeeda in la helo ay aad ugu dadaalaan marka waxaan rajaynayaa warbaahinta Soomaaliyeed inay ka tanaasulaan maray habaabinta bulshada inay bulshada mar habaabiyaan iyagoo laba aragti iska soo horjeeda raadinaya waxyaabo aan laba aragti yeelan karin inaysan ka raadin laba aragti qabaan tusaale ahaan ilaahay ma jiro iyo waa jira in dood la geliyo yaa waxay tahay qalad hooyo waxaan dhihi lahaa amba hooyaday waa jeclahay sidii hooyaday loo sameyn lahaa aan jeclahay wiilka hooyadiisna in lagu sameeyo Allah ku sharfo marka mid kale saddexdaada ada ka dhigin karo qof xun adana ka dhigin karo qof wanaagsan hooyo laga maarmaas leeyahay dadka soo aaminsan
ilaaha soo hanuuniyo